Soo dhawaada daawadayaal, waxaanu ka hadli doonaa madaxda ugu mushaarka badan dunida. Madaxda aan barnaamijkeena uga hadli doono waa kuwa ay dadkooda soo doortaan, mana ku jiri doonaan kuwa wadamadooda xoog ku qabsaday. Haddaba kaalinta tobanaad waxaa ku jiro Shafir Patel, ra'iisul wasaaraha Luxembourg. Sanadkii wuxuu mushaar ahaan u qaataa $278,035. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jiro Sebastian Kurz, Chancellor-ka waddanka Austria. Sanadkii wuxuu mushaar ahaan u qaataa $328,584. Kaalinta sideedaad waxaa ku jiro Mohamed Abdulaziz, madaxweynaha waddanka Mauritania. Sanadkii wuxuu asna qaataa mushaar ahaan $330,000. Kaalinta toddobaad waxaa ku jiro Jacinda Ardern, gabadha ra'iisul wasaaraha ka ah waddanka New Zealand. Sanadkii waxay mushaar ahaan u qaadataa $339,862. Kaalinta lixaad waxaa soo xiriirsatay Angela Merkel, Chancellor-ka ama ra'iisul wasaaraha waddanka Germany. Sanadkii waxay ra'iisul wasaaraha waddanka Germany waxay qaadataa sanadkii lacag u dhiganta $369,727. Kaalinta shanaad waxaa ku jiro Scott Morrison, ra'iisul wasaaraha waddanka Australia. Sanadkii wuxuu mushaar ahaan u qaataa $378,415. Kaalinta afraad waxaa soo galay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Sanadkii wuxuu qaataa $400,000. Kaalinta saddexaad waxaa ku jiro Yueli Maurer, madaxweynaha midowga Switzerland. Sanadkii wuxuu qaataa $482,958. Kaalinta labaad waxaa fadhiyo Carrie Lam, ra'iisul wasaaraha ama madaxa fulinta ee waddanka Hong Kong ama jasiiradda Hong Kong ee ka tirsan dhulweynaha China. Sanadkii wuxuu mushaar ahaan u qaadataa $568,400. Kaalinta koowaad waxaa ku jiro ra'iisul wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong, waana ra'iisul wasaaraha ugu badan ama shaqsiga ugu badan ee qaato lacagaha mushaaraadka sanadkii, wuxuuna sanadkii qaataa $1,610,000.